waddanka Spain oo waddan ka mid ah wadamada Yurub qaaradda Afrika gudaheeda ayuu dhulkiisu qayb ka mid ah ku taal. Waxa uu dhulka haystaa waddanka Morocco halka isagana dawlad Yuruubiyaan ah ay ka haysato dhul ay Isbaanishku sheegtaan. Balse marka hore ayaa waayatan wararka caalamku aad u hadal hayaan arrimaha la xiriira Catalonia oo rabta inay ka go'do Spain inteeda kale. Spain ayaa waxa ay ka kooban tahay gobollo iyagu ismaamula, laakiin labada gobol ee la kala dhaho Catalonia iyo Basque maadaama ay ka dhaqan iyo luqad duwan yihiin Spain inteeda kale ayaa waxa aad uga cadcad dadka halkaas ku nool ay doonaya inay ka go'aan waddanka intiisa kale. Arrin yaab leh oo mawduuca ka baxsan laakiin qowmiyadda Basque xiriir la leh ayaa waxa ahayd in gobol ka mid ah Iceland uu xeerarkiisa ku jirtay in qofkii gobolka Basque ka yimaada ee lagu arko halkaas uu qof kasta xaq u leeyahay inuu meesha uu ku arko ku toogto. Xeerkaas ayaa waxa uu bilowday 1615 markii ay iskhilaafeen dad halkaa ka soo jeeday iyo dad qowmiyadda ka tirsan oo halkaas safar ku ahaa. Qaanuunkaas ayaa waxaa sharciga laga saaray sanadii 2015. Haddaba gobolka Catalonia oo ah gobolka ugu dhawaaqa weyn ayaa ah gobolka ugu dhaqaalaha badan waddanka Spain, canshuurta ugu badanna laga qaado. Lacagtaasna ay dowladda Madrid ka dhisan aysan dib ugu soo celin badankiis dadka deegaanka. Taasaana keentay in dadkeedu u ololeeyaan inay ka go'aan waddanka intiisa kale, iyaga oo la fiirinayo dhibaatadii uu geystay dictatorkii xukumayay Spain tan iyo 1975 generaalkii la oran jiray Francisco Franco, kaasoo caburin jiray dadka Catalonia luqadoodana mamnuucay intuu xukunka hayay. Waana midda keentay inay dadka gobolkaas aysan il fiican ku fiirin oo mar walba shaki ka qabaan dowladda Madrid ka dhisan. Arrinta dhulka Spain ay haysato ayaa ah dhulka Spain ee qaaradda Afrika ku yaal oo waddanka Morocco isna sheegto. Laba magaalo ayay Spain ku leedahay Afrika, labadaas magaalo oo la kala dhaho Ceuta iyo Melilla ama Sabta iyo Melilla. Labadaas magaalo Spain ayaa gacanta ku haysa. Dowladda Morocco ayaa iyaduna sheeganaysa dhulkaas inay yihiin qayb ka mid ah waddankooda oo gumaysiga Spain uu ka haysto. Haddaba haddaad dhul xoogto adna waxaa dhici karta in cid ka awood badan ay ku xoogto. Britain ayaa iyadu waxa ay ka haysataa Spain dhulkaas oo ah Gibraltar oo dhinaca xad kala leh Spain. Dhulkaas ayaa waxaa Ingiriisku si rasmi ah gacanta ugu gashay 1715 kadib markii dagaal aad u weyn uu ka dhex dhacay dowladihii Yurub ka jiray bilowgii qarnigii 18aad kadib markii uu dhintay boqorkii Spain ee madhalayska ahaa Charles II. Iyaga oo dowladahaasi isku qabsadeen cidda dhaxli lahayd boqortooyadaas. Dowladihii Yurub ka jiray oo dhan dagaal 12 sano socday baa dhex maray. Haddaba dagaalkaas intii lagu guda jiray ayaa waxa ay Ingiriisku qabsadeen Gibraltar sanadii 1704. Tan iyo waagaasna gacantooda ayay ku jirtay. Haddaba Spain ayaa iyadu waxa ay weli sheeganaysaa inay iyadu meeshan xaq u leedahay. Ilaa hadda Gibraltar ayaa waxa ay hoos timaadaa waddanka Britain.